Bismillahirrahmanirrahim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka kooban ee TV-ga Galmudug oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada caasimadda Muqdisho. Waxaan idin akhrin doonaa anigoo Yuusuf Maxamed Axmed. Qodobada aad ku daawanaysaan waxaa ka mid ah Allah u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. waxaana abwaanka oo dhawaanahanba ee ku xanuunsanayay magaalada Addis Ababa geeridiisa xaqiijiyay abwaan Xirsi Dhuux oo kamid ah golaha abwaanada Soomaaliyeed. Allah u naxariistay Abwaan Sangub waxa uu ahaa gudoomiyihii golaha abwaanada Soomaaliyeed waxaana uu alifay rubaayado dhowr ah oo caan ka noqday Soomaaliya iyo sidoo kale heeso dhowr ah. waxa sidoo kale uu tiriyay abwaanka Allah u naxariistay gabayo badan oo lagu xusuusanayo. Allah u naxariistay golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed ayaana ka tacsiyay geerida Abwaan Sangub sidoo kalena xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana ka tacsiyay geerida abwaanka. waxaad ku daawan doontaan wararkeena soo aadan taariikhda oo kooban ee Abwaan Cabdullaahi Ciise Sangub. Soomaaliya ayaa 33 sano kadib waxa ay dib ula soo laabatay xubinnimadii ay ku lahayd ururka shaqaalaha adduunka. warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Cabduqaadir Cabdullaahi Warsame. Soomaaliya oo muddo dheer xubin ka ahayd ururka shaqaalaha adduunka ayaa waxaa xayiraad ay ka saarnayd codeynta, balse hadda wuxuu dalku awood buuxa u leeyahay inuu tago goobaha wada hadalka iyo shirarka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka, halkaas oo uu cod ku dhiiban karo. shirweynaha shaqaalaha adduunka ee ka socda Geneva ayaana isku raacay in Soomaaliya loo ogolaaday in ay soo ceshato xuquuqdii ay u lahayd in ay cod dhiibato amaba ay codeyso, taasoo sidoo kale ay u codeeyeen xubno gaaraya 191 xubnood, iyadoo arintan uu si weyn u soo dhaweeyay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa. arintan muddo ayaa laga shaqeynaya muhiimad weyn ayayna u leenahay in dalka inuu dib u helo codkii aan ku lahayn ururka shaqaalaha adduunka ee xayiraadda naga saarnaa tan iyo markii dowladdii dhexe ee meesha ka baxday, ayuu yiri wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfaa oo magaalada Geneva kaga qayb galay shirweynaha shaqaalaha adduunka. wasiir Sadiiq Warfaa ayaana muujiyay siyaasadda xukuumadda ay ku dhisan dib u dejinta shaqaalaha iyo shaqo abuurka in arintan gacan weyn ay ka geysaneyn doonto, isagoo marka tilmaamay waxa ugu weyn ee uu dhinaciisa dalka geliyay inay ahayd sidii sanadkan loogu guuleysan lahaa dib u helidda codkii Soomaaliya ee uu ku lahaa ururka shaqaalaha adduunka. si la mid ah dalalka xubnaha aan ka ahayn amaba codkooda aan dhiiban doonin ayaa tagi doona meeshaas wada hadalka, halkaas oo aan fursad u helayno in aynu codkeena ka dhiibano. run ahaantii waa guul weyn kadib 33 sano in ay suurto gasho, ayuu yiri wasiir Warfaa. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa ayaana dhinaca kale cadeeyay dowladda Soomaaliya sidii ay uga go'an tahay horumarinta shaqaalaha iyo sidii shaqooyin loogu heli lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka. sidoo kale waxa uu tilmaamay in waxyaabo badan ay ka dhaxli doonaan xayiraadii laga qaaday codeynta ee ka saarnayd hay'adda shaqaalaha adduunka ee marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaano ILO muddadii 33 sano ahayd ee la soo dhaafay. Cabduqaadir Cabdullaahi Warsame, Galmudug TV. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa ka tacsiyay geerida nabadoon xalay lagu dilay magaalada Kismaayo. dhinaca kalena waxa uu hay'adaha amniga uu faray in ay baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan kooxdii ka dambeysay dilkaasi. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa si kulul waxa uu kaga hadlay dil xalay ay kooxo hubeysan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ugu geysteen nabadoon Cabduqaadir Ibraahim Xasan oo ka mid ahaa waxgaradka deegaanada Jubbaland. madaxweynaha ayaa tacsi u diray qoyska iyo ehlada uu ka baxay. Allah u naxariistay nabadoon Cabduqaadir Ibraahim Xasan uuna sheegay in al-shabaab ay ku dileen magaalada Kismaayo. madaxweynuhu wuxuu Allah uga bariyay nabadoonka in jannadii Firdawsa uu ka waraabiyo, isagoo dhinaca kale hay'adaha ammaanka faray in baaritaan degdeg ah ay sameeyaan gacantuna ay ku soo dhigaan
kuwii ka dambeeyey falka lagu dilay allaha u naxariistay nabadoon cabdiqaadir ibraahim xasan. nabadoon cabdiqaadir ibraahim xasan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ku howlanaa soo xulista xildhibaanada Jubbaland, ha yeeshee uu kasoo horjeestay sida lagu soo xulayo xildhibaanada. weli waxaad daawanaysaan warka TV-ga Galmudug ee kooban. taliska howlgalka Africom ayaa waxa ay faahfaahin ay ka bixiyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay ka fuliyeen deegaanka Jilib oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe. warkan waxaa mar kale eegaya wariyaheena Cabdiqaadir Cabdullaahi Warsame. howlgal si wada jir ay u qaadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa waxa ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaanka Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare ee ka tirsan ururka Al-Shabaab. war qoraalaha oo ka soo baxay taliska ciidanka militariga Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay howlgalkii duqeyn dhanka cirka ahaa ee lagu bartilmaameedsaday saldhig ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in 2 ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay, waxaana sidoo kale ay sheegeen in aanay jirin wax khasaare ah ee soo gaaray dadkii rayidka ahaa ee ku sugnaa halkii bartilmaameedka uu ahaa. taliska Africom ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalladaasi ay ku taageerayaan dowladda Soomaaliya si loo soo afjaro dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Cabdullaahi Warsame, Galmudug TV. dhalinyarada socdaalka nabadda ee Galmudug ayaa ka tacsiyay dadkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug u ah. warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Saadiq Saciid Nuur. kulankan oo isugu yimaadeen dhalinyarada magaalada Gaalkacyo gaar ahaan kuwa ku midaysan ururka socdaalka nabadda ayay kaga hadleen dhacdooyinkii habeenkii Sabtida ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. dhalinyaradan ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin falalkii foosha xumaa ee lagu dilay 9 ruux oo ka soo jeeda deegaanada Koonfureed ee dalkeena Soomaaliya iyo sargaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya qaybtooda Galmudug. waxayna ugu horeyn tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkaasi. dhinaca kale dhalinyaradan ayaa dowlad goboleedka Galmudug waxay ka codsadeen in cadaaladda la hor keeno kooxihii falkaasi ka dambeeyay. saako isniina 17 bisha Juun sanadka 2019 annagoo ah dhalinyarada Gaalkacyo ee ku midaysan ururka socdaalka nabadda waxaan isugu nimid inaan runaantii ka tacsiideyno isla markaana cambaarayno dhacdadii foosha xumeyd ee habeennimadii Sabtidii ka dhacday Gaalkacyo lagu gumaaday dadka shacabka aan waxba galabsan runaantii sida qaldanna loo beegsaday ka urur ahaan waxaan rabnaa saaka inaan iyo sida runtii ay noo xanuujinayso in dad Soomaaliyeed oo ku nool dalkoodii iyo deegaankoodii la beegsado isla markaasina lagu beegsado fal aysan iyagu geysan oo ay geysteen kuwa dambiilayaal. ugu horeyn waxaan rabnaa inaan tacsi u dirno ehelkii qaraabadii ay ka dhinteen dadkaasi. annaga oo dhan bay naga wada dhinteen oo waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo dhammaanteen rixim iyo qaraabay nala ahaayeen, balse waxaa jira dad ay si qaas uga dhinteen. dadkii ay ka dhinteen waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. intii dhimatayna waxaan leenahay Allah u naxariisto, gacan ka xaq daran baa dishay, jannatul firdaws Allah ka waraabiyo. inta dhaawacana waxaan leenahay Allah u bogadhayo. intaas kadib waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya qaasatan gobolada Baay iyo Boqol 20 sano iyo ka badan ee ay Soomaaliya burbursanayd si nabadgelyo ay ugu noolaayeen Gaalkacyo. cid iska daa dil u geysatay maysan jirin cid xataa u muujisa in ay joogaan deegaan ay salahayn. waxa dhacday dhacdo nasiib darraa oo ay geysteen kuwa wax magarata oo aan ka turjumayn qiyamka dadka reer Gaalkacyoodka ahaa ee lagu yaqaanay gobonimada sharafta iyo soo dhaweynta. waxaan rabnaa inaan u muujino dadka walaalaheena in weli deegaanku yahay koodii oo aysan jirin cid ka xigta oo ay ku noolaan karaan. kuwa wax magaratada dhibka geysteenna waxaa la rabaa dadka Gaalkacyo iyo guud ahaan dadka Galmudugba inay ka dhidhiyaan isla markaana ay muujiyaan in dadkaasi aysan iyaga ka tirsaneyn oo gacanta lagu soo dhigo cadaaladdan la hor keeno. waxaan rabaa in aan uga tacsiiyo walaalaha reer Koonfur Galbeed sida xaqdarrada ah loogu gumaaday magaalada Gaalkacyo. inaan uga tacsiiyo dilkaas foosha xun ay u geysteen dadka wax magaratada ah. waxaan rabaa inaan dadka reer Gaalkacyood ah aan ugu baaqo in ay nabadda ilaashadaan isla markaana ay ilaashadaan gobonimadii iyo martisoorkii lagu yaqaanay dadka reer Gaalkacyood. dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo taasi oo dad masaakiin lagu laayay kuwaas oo ka soo jeeday Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. dhalinyaradaasi runtii waxay ahaayeen dhalinyaro inaga naga baxay
waxaan tacsi tiiraanlay iyo u dirayaa dhammaan ehladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo dadkii nasabka ahaa oo ayagu ay ka baxeen oo inagu qayb ka nahay waayo waxaynu wadaagnaa Soomaalinimo nasibnimadana qofka bini'aadamka waxa u fiican inay u ahaato Soomaalinimadiisa waxaan tacsi u direynaa dhammaan ehladii qaraabadii oo inagu aan qayb ka nahay gaar ahaan dadkii si gaarka ah ee naga dhinteen hooyooyinkoodii walaalahoodii familkoodii dhammaan gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle dhammaantu tacsin ayaa u direynaa inagoo aad uga xun dhibkaas loo geystay dadkaas walaalaheena dhammaantu wuna wada gaaray dhibkaas dad qof kasta oo damiir naxale uu gaaray qof kasta oo dhiig leh uu gaaray dhibkaas oo dadka naxariis darrada loo dilay runtii waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannat firdawsaha ugu bishaareeyo dadkaas masaakiinta dadka kale waxaan u baaqayaa dawlad goboleedka Galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya dadkaasi oo dhibka faashxun u geystay dadka muslimiinta ah inay cadaalad la hor keeno baaritaynina dhalinyarada socdaalka nabadda waxay maanta u istaageen inay dareen u muujiyaan walaalaheen Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay habeennimadii Sabtida ee magaalada Gaalkacyo waxaan leenahay Allah naxariisto intii dhimatay inta dhaawacana Allah caafiyo waxaan rabnaa bulshada Gaalkacyo inay ka dhiidhiyaan oo dareen ay u muujiyaan walaalaheen Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaan rabaa inaan ugu baaqo dawladda Galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay cadaalad hor keenaan dadkii xasuuqay walaalaheen isla markaana xarunkii ay dareesiyeen walaalaheen Soomaaliyeed in ay kana la dareesiyo Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo haddii aynu eegnana qodobada ee dibadda madaxweynihii hore ee dalka Masar ayaa la aasay xilli musaacado ay ka soo wareegato kadib markii uu ku dhex geeriyooday xilli ay socotay maxkamadeyntiisa maxkamad ku taala magaalada Qaahira madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi ayaa lagu aasay magaalada Qaahira saacado kadib markii uu si lama filaan ah ugu dhex geeriyooday maxkamadda dhexdeeda qaar ka mid ah xubnaha qoyska ayaa aaska ka qayb galay waxaana loo diiday inay meedka qaataan si ay ugu aastaan deegaanka uu ku dhashay bulshaduna ay uga qayb qaadato aaskiisa madaxweynihii hore ee dalka Masar Mursi ayaa isagoo diinta islaamka haysta waxa uu xabsi ku jiray 6 sano kadib markii ay militariga xilka ka tuureen sanadkii 2013 telefishinka dawladda ayaa sheegay in wadnaha uu istaagay balse hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ku baaqay baaritaan dhexdhexaad ah oo lagu sameeyo geeridiisa waxayna intaasi ay ku dareen in su'aalo badan ay ka taagan tahay sidii loola dhaqmay intii uu xabsiga ku jiray madaxweynaha dalka Turkiga ayaa noqday hogaamiyaha kaliya ee ka tacsiyeeya geerida ku timid Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi inkastoo dunida islaamka intooda kaleba madaxdooda ay ka gaabsadeen inay ka tacsiyeeyaan geerida ku timid Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi waa hagaag daawadayaal guud ahaan warkii koobnaa ayaad ka daawanayseen TV-ga Galmudug waanaga inta waad ku mahadsantihiin daawashada warkeenan waxaa idin akhrinaya anigoo Yuusuf Maxamed Axmed